tahay Puntland buuhood le baraniyo bartamaan ugaaliyo mudugo barwaaqa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين walaalayaal magacaygu waa haddaan idhaahdo faratoon aan kusoo koobo waxaa igu qasbay maanta inaan kliigaan maaragtay inaan duubo wadankii baan tegay odaysahan tegayna waan ahaa haddee waan soo noqday marka waxaan jeclaystay inaan wixii dhaliila iyo wixii waxqabada iyo inaan Puntland ku saabsan inaan usoo gudbiyo qurba joogta iyo intii dhulkii aan oga imidba inay dhammaantood maaragtay aan wixii aan arkay aan u sheego ayaa igu qasbay kliigan waa marka ugu horreysay waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa dhammaan reer Puntland meel kastoo ay joogaan kuwii gudaha iyo qolooyinka qurba joogta ahba dhammaantood waan u mahadcelinayaa qurba joogta waxaa kaloon aada iyo aada ugu sii mahadcelinayaa gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska Puntland taliyaha guud oo ah cabdiqaadir ereg naanistiisu tahay cabdiqaadir waa saaxiibkay iskulood baan ahayn waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa gaar ahaan cabdiqaadir sida wanaagsaneed uu iisoo dhaweeyey iyo sida uu ii marti qaaday intaba aniga saaxiibaday cabdiqaadir haddii aan faallo yar ka bixiyo mahadcelintiisa wuu iga mudan yahay inaan tilmaamo wuxuu yahay cabdiqaadir iskulood baan ahayn academy ilaa iyo 2 sano iyo badh haddii dee maalmo loo bedelana waad iska garan kartaan inta ay noqon karto aanu iska soo horbaxaynay ama aanu koors ku wada jirnay cabdiqaadir waa sarkaal aada iyo aada u dhisan adag aan aada ugu farxay runtii waajibka iyo hawsha loo magacaabayna aan dhihi karo wuu kasoo bixi karaa koorskii aanu isla gallay academiga ahaa waxaa noo dheeraa mid kumaandoos ahoo firqa saaciqa oo kumaandoos ah oo 45 cisho oo jahanaba ah runtii cabdiqaadir wuxuu ku jiray raggii noogu firfircoonaa ugu boodada dheeraa ugu adkaysiga badnaa ayuu wallaahi ka mid ahaa cabdiqaadir aad baan ugu farxay markii Puntland lagu magacaabay taliyaheeda booliska isagoo weliba militaria haddana khibrad kale oo booliska ana uu soo qaatay waayadii dambe intaan burbur ku dhicin cabdiqaadir saaxiibkay aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa soo dhaweyntii ficnay waan ku yara dheeraaday cabdiqaadir waa ku salaamay saaxiib intaasaad xaq igu leedahay inaan maanta meediyaha ka baahiyo waxa aad tahayna ilaahayna waa ogyahay intii aynu isku kooraska ahayn intaan dhiman inkastoo aan ognahay in dagaaladii aynu ku jirnay maaragtay shisheeyaha maaragtay ay rag badan nooga dhinteen laakiin anagu dagaal sokeeye ma aanaan gelin weli kumaana arag wax loodkeeniya oo dagaalkii sokeeye ku jira alxamdulilah sarkaal qaranna waa tahay mid Puntlandna waa tahay cabdiqaadir ninkii waa haystay inuu boolis yahayo waa commandos kooraskaana uu soo qaatay aad baan ugu mahadcelinayaa waana ku farxay waxaa kale oo aan cabdiqaadir xasuusinayaa riwaayadii intana lagu daadiyey meel leeg ah annagoo tuutaha anagii iyo hubka anagii iyo waxa anagii wadana macallimiintiina tababaraysay ay qolo naga soo dhex saareen ay u bixiyeen kooxdii sandulle annaguna aan ahayn dhegeystayaasha qasabka ah annagoo leegka ku jirna waqti xilli lala fiirsaday oo aada iyo aada u qabow waadan biyaha haddaad saa uga soo baxdo aadan xamili karin baan cabdiqaadir xasuusanayay kooxdii sandulle iyo dhegeystayaashanadii qasabka marka intaa waa iga xasuusin cabdiqaadir inkastoonan maalintii dhawood markuu imarti qaaday aanan soo xasuusan haddaan xasuusinayaa intaa haddaan cabdiqaadir kaga baxo aniga naftaydu sarkaal qaran baan ahay laakiin dee Puntland baan u dhashay markii aan wax noqono Puntland ayaanu Soomaalina wax u tari karnaa inta haddaan kaga gudmo qodobkayga labaad wuxuu yahay inaan ka hadlo bal wixii aan soo arkay dhan ciidan iyo dhan shicibba haddii aan kala saaro waa marka u horreysay ciidankan israaciyo ciidanka Puntland waa ciidan aada u dhisan runtii aragtidayda xoog leh difaaci kara dhulkiisa dhan walba hadday tahay booliska hadday tahay daraawiishta inkastoona daraawiishta saraakiisheedii waxba ka arag haddana sheekada waan qabay waa soo gaadhaysay waxay yihiinna saraakiil yacni aniga aan wada fadhiisanay oo sheekaysanay oo soo aragtay baa fikrad fiican iga siiyey way dhisan yihiin
inkasta oo weli loo baahan yahay saraakiisha puntland u dhalatay ee kadamiga ahayd ee la rabay inay ciidanka hoos kasoo dhisaan ciidanka dhisma la-aantiisa iyo ciidan xumiduna madaxweynuhuna madaxweyne ma noqon karo, wadankuna nabadgelyo ma helayo. taas waxa weeye arrinta ciidanka dhaliilaha aan kusoo arkay waxaa kamid ah waxaad moodaa waxoogow aas-aaskii u horreeyey ee puntland ayaa ciidanku ka wiiqan yahay, welina sidiibuu ku jiraa. waxayna arrintaydan aan ugu badinayaa in yani fikir laga qaato oo madaxweynaha weliba waxaan ka codsanayaa isaguna sidii uu kula wareegay unbuu ku hayaa inuu wax ka bedelo dhismaha ciidanka ee qabiilka ku dhisan. ciidan qabiil ku dhisan waxba ma tarayo, wadanna wax tari maayo, madaxweynuhuna xataa nabadgelyadiisa ma aragtay aan wanaagsanaan karin. ciidanka waxaan dhihi lahaa in la qarameeyo, in laga saaro qabiilka. in waxaad arkaysaa dee ma aha sir inaan bixinayo, laakiin waxa weye dee sidaasay wax ku difaacaan oo ku wanaagsan yihiin. laakiin dee waxaa kasii qurux badan in ciidanka la qarameeyo oo laga dhigo ciidan yacni puntland oo cid walba ay iska dhex aragto, oo ciidanku ay saraakiishii aqoonta lahayd inta loo raadiyo nin fikrad ku dari kara iyo nin xooggiisiiba raacin kara waa la helayaa puntland. saraakiil aniga fartoona iga aqoon badan, iga karti badan, iga darajo weyn baa buuxda oo puntland ku nool. haddii aan la sheekaystayna waxay yani maaragtay cudurdaar fiican imayna siin, laakiin waxaa qurux badnaan lahayd inay dowladdu iyadu raadiso, codsato, saraakiishana wixii howlgelayana ay howlgeliso, wixii aan howlgeli karinna ay fikirka iyo aqoonta fiican ka qaataan. sababtaan u lehay waxay tahay ciidanku askarigu wuxuu ka diriraa ama ka amar qaataa marka u horeysa waa caloosha waay. askarigu hadday calooshihiisu buuxdo amarna wuu qaadanayaa, waana askari awood leh ayuu soo baxayaa. laakiin haddii askarigu calooshihiisu maran tahay waxba cidna amar ka qaadan maayo, dishibliin xumiduna had iyo jeer way ka iman kartaa. waxaan leeyahay marka si arrintaas ay u hagaagto in ciidankii hoos laga soo dhiso. ciidanku wuxuu u baahan yahay marka ciidan handikaaba ayaa ka buuxa, mid ila mid lugla, waxaasoo dhan in laga sufeeyo, in data de arolamento kow inta la sameeyo ciidankii laga dhiso xaggii balorta wuxuu xaq u lahaana uu helo. ciidanku wuxuu u baahan yahay sidaan u tilmaamay ciidanka puntland awoodiisa waxay sii xoogeysan kartaa, ay qurux badan tahay in dib loogu noqdo oo aasaaskii u horreeyey ka khaldamay laga bedelo, qabiilkana laga bedelo, ee loo bedelo ciidan puntland oo saraakiil kuwa yaryar iyo kuwa hore iyo kuwa dambaba wixii aqoon u leh ay saraakiil askartaas tababar hor leh ay u furaan. wixii dhaawaca iyo wixii dhibaataysanna laga sifeeyo, laga saaro, xaqoodii iyo waxoodii awood ay uleeyihiin ee dowladdu awoodana in askartaa ma aragtay la daryeelo, kooda howlgeli karana si fiican dib loogu noqdo ayay ma aragtay aniga tala bixintayda tahay. waana arrin aada iyo aada loogu baahan yahay. hadday tahay dishibliin iyo ismaqal, ciidanku markuu dishibliin leeyahay cid walba wuu iska difaaci karaa. laakiin haddii mar dishibliinku ka dhinto oo dhismihiisuna ilaa heer qabiil yahay waxba iskama difaaci karo. really taasaa run ah. awood kasta iyo hub kastood haysato haddaan ismaqal jirin waad wiiqmaysaa, wax la ogaaday waay. adiga oo aan hub weynaysan laakiin ismaqal haya, ciidanka aad dagaal geliso ama dagaal galahay guusha wuu u dhow yahay 80%. marka intaa waa iga taladii ciidanka in dib loo habeeyo. madaxweynahana waa ka codsanaya arrintaa iyadaa iyo taliyaasha guud ee ciidamadaba inaan arrintaas tala bixinta iga aniga inay maaragtay la bilaabo oo ciidanka dib loogu noqdo. haddii aan ka gudbo intaas qodobkii waxaan u dhaadhacayaa marka shicibka puntland iyagana aad baan ugu mahad celinayaa intii isoo dhaweysay, isin lahayd, shicib lahayd, ganacsato lahayd, saaxiibaday dhammaantood ma wada magacaabi karo. aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidii fiicneeda niyad samidaheeda ay iisoo dhaweeyeen iyo siday u dadaalayaan wadankooda iyo horumarka ay gaadheen. waxaan soo arkay moolal aada iyo aada u waaweyn oo runtii aada iyo aada u qurux badan. waxaan soo arkay wadooyin, waxaan soo arkay dhismayaal, waxaan soo arkay wax walba oo aada iyo aada u wanaagsan oo puntland ay hore ugu martay. laakiin dhaliilaha aan isleeyahay waxbaan yaro dhaliila waxaa kamid a sida gaasi stationada oo kale.
ilaahay baan idinku dhaariyey waxaan arkay haamo shidaal ah oo xaafid ku dhex yaal oo aan baabuurka gaaska qaadanaya xataa sidii gaasstationada casriga aan u dhisnayn u baahanna arrintaa aan ku dhaliilayo qurba joogta inay fikir geeyaan oo ahaa sida ay u dhisan yihiin gaasstationada wadamada aan joogno oo kale laga saaro gaaska xaafadaha iyo meelo macquul ah oo gaaska maaragtay ku habboon qaar gubtay waaba la ii sheegay oo dab ka kacay arrintaa aada iyo aad baan u dhaliilay runtii waxaana ku dhaliilsanahay qurba joogta fikirka iyagaa laga rabay inay dadkooda u geeyaan ninka aan arkay inuu haamaha xaafadda ku dhex sameeyey waxaa ii muuqata inuusan fikir fiican oo qaabka gaasstationka inuusan haynin baa ii soo baxday laakiin dee innagaa dayacnay qolada qurba joogtaa dhaliishaa iskale waxaa kale oo iyadana aan jeclahay inaan dhaliil iyadana aan u arko waxaa ka mid ah sida traffic oo kale inkastoo cabdiqaadir iyo ay khusayso arrintaas saaxiibkayga aan aadka u ammaanayey lagana yaabo inuu hadda kuwa mashquulsan yahay haddana waxaan isleeyahay traffiga magaalada waxaad moodaa waxoogo baabuurta ku badan tahay aada iyo aad una baahan yihiin waxa la yidhaahdo insurance la-aantu aad bay dhibaato u leedahay ama hay-ad ha la siiyo ama dawladdu ha qaadato ama ganacsata ha la siiyo fadlan waxaa iga dardaarana ilmaada reyaalo baabuurta faraha badan aan arkay ee qaar isdilayaan hadday isku dhacaan ee dhibaatada keenaya in insurance loo sameeyo dawladdana waan u sheegayaa ganacsatadana waan u sheegayaa ama ganacsada ha la siiyo ama dawladdu ha qaadato insurance waa in baabuurtaa la geliyaa baabuur aan insurance lahayn sida loogu dadaalay beleydka oo kale waan arkay beleydkii aad buu u samaysan yahay driver licenskii waa qurux badan yahay laakiin waa in lagu dadaalo oo kale insurancegii baabuurka iyadana aada iyo aad baan maaragtay dhaliil ugu soo arkay waana jeclahay ani waxay iga tahay wanaag iyo horumar bay iga tahay inaan sheego haddaan la sheegin dee weligeen saan baan ahaanaynaa waxaa kaloo on iyadana ammaan usoo jeedinayaa diyaaradda shabeelle oo aan soo raacay waxaan aada ugu mahad celinayaa dhalinyaradaas ee fikiray ee keenay diyaarad straight ah boosaaso to dubai anigu waxaan soo maray markaygii hore hargeysa waa wadan soomaaliyeed oo walaalaheena laakiin dee dhibaato badan bay nagu haysay oo ah in boorsooyinkii oo la waayo wax isdaba maraan diyaaradii oo yani ka degto haddana tu kala fuusho cimiladii oo yaro kulul hadday doonto laakiin hadda waxaad helaysaa boosaaso to maaragtay imaaraadkii ayay dhalinyaradaasi noo sahleen aad baan ugu ammaanayaa horeyna waan ooga hadlay anigu iidhahoma sameynayo xoolana kuma lihi laakiin waxaan jeclahay wixii horumar sameeya in la tilmaamo dhalinyaradaas aad baan ugu mahad celinayaa diyaaradda shabeelle servicekeeda oo aada u wanaagsanaa diyaaradoo casriya ma garanaysaa muddadii gaabneed aan ku tagnay meeshii aan doonayna aad baan iyagana ugu mahad celinayaa magacyadooda xataa ma aqaan saasaad ku garanaysaan inaanan anugu wax ujeedaa ka lahayn qodobka kale waxaan u gudbayaa ilmaada reyaalow dhankii isimada puntland waxay weligeed ku noolayd oo ay ka dhiman weyday waa isimadii allah u naxariisto waa weynaa intoodii badneed way dhinteen isimada bedelkoodii ee dhalinyarada ah waxaan ka codsanayaa hadda dhalinyaro ma aha mar hadday magacaaban yihin isim ku magacaaban yihiin xusmay mudan yihiin iyagii baan waxaan soo arkay in yaro dhaliila iska jiraan is-afgaran waa uu jiro haddaan example ka bixiyo waxaan maqli jiray isimadii hore ee waaweynaa in mid kamida uu yidhaahdo taladu iga gu'i mayso walaalkay oonan arrinta kala tashan jacaylkay isu qabeen arrinta ay go-aanka ka wada gaari jireen sida quruxda badan waxaan aada iyo aada oga naxay isimadii oo kala shiraya waxaana arrintaas ka codsanayaa qurba joogta dawladda puntland fadlan ilaahay baan idinku dhaariyay arrintaa ayaan la sahlanin waanu dhimanaynaa waana baaba-aynaa runtaan idiin sheegaynaa haddii isimada khilaafkooda la xallin waayo waxaan dawladda ka codsanayaa gaar ahaan cabdiweliow aniga xaggayga runtii aad iyo aad qof jeclaysi ooma hadlo ima taqaanid runtan ballan baynu lahayn kuma imanin shaqo badni awgeed aad qabtay awgeed baan kaaga soo tegay waxaan kaala dardaarmayaa adaa ugu horeeya isimadaa cidda heshiisiin karta isu keeni karta geed dheer geed gaaban u ful ilaahay baan kugu dhaariyey isimadaa isu gee puntland een weligood khilaafkoodu nagu cusub yahay aan odhan karo wayna dhibaataynaysaa ama facan bay naga reebaysaa arrintaa madaxweynaha ayaan aada iyo aada uga codsanayaa isagana ilaahay hawsha ha u fududeeyo in badan baa aan arkay isaga hawshaa ku badan qofka waa in garab la siiyo war haddaynaan garab siinin aada iyo aad buu mataqaanaa qofku
waxaan maqli jiray hees ahaa inkastoo nin geesiya rag u geeda dheer yahay haddaan garabka lala qaban guri oodi maaye guri oodistu waa kii baadiye xumaa ooda ayad buusan samayn karin ninka ragga iyo haddaan garabka lala qaban war nin dhan oo ummadan hogaaminaya haddaynaan taageerin oo aynaan u hiilinin ilmaada rayaalo waxa qabtaba qab qabiilkaygii baa wax la siin waaye reerkaygii baa wax la siin waaye yay mucaaradku u batay markaan runta isu sheegno nin weli ma arag mucaarad daacada oo wax dhaliil ah sheegayo laanu madaxweynaha waan ku mucaaradsannahay waxa iyo waxa maalin dhowed haddaan xuso hadda wiil yar oo aad iyo aad u qurux badan oo aan arkaya meediyaha ka hadlayay oo madaxweynaha aad iyo aad u dhaliilsanaa oo lahaa cadaalad darbu sameeyey gobolkiisii reerkiisii buu u eexday adeerow meediyaha ka xisho waxa adoo da-yar cudurkaas ha la imanin markii aan arrintaa baadhay anaa ku caddaynayo ku sheegaya waxaa ii soo baxday in familka aad ka soo jeedo wax laga bedelay haddaad daliil sheegayso adoon waxba lagaa bedelin meediyaha imow tilmaan madaxweynaha tilmaan dhaliisha tilmaan raalli baan ka nahay laakiin reerkaygiibaa wax laga bedelay way isku xigaan waan joogay anugu soomaaliyaan joogay garow waan joogay marka aad hadlaysa ee hore intaan lagu xidhin iyo markii dambe aad hadlaysay intaba waa dhegaystay adeerow waan kaa weynahay adeerkaabaan ahay waa ku calaananayaa meediyaha ha la imanin arrimaha noocaas oo kale ah talada iyo la imow aqoontaada la imow laakiin reerkaagiibaa wax laga bedelay oo qoyan inaad daliil madaxweynihii iyo fadeexad la soo istaagto meediyaha aad iyo aad baa looga qurux badan yahay meediyahana waa dhaliilsanahay say u dhan yihiin inay waxyaabahaas oo kale saxaan iyaga naftoodu ay wixii dhibaato keenaya ay celiyaan baa loo baahan yahay meediyaha iyagana intaasaan kula dardaarmayaa ilma adeer hadalka waa ku dheeraaday waxaan dhihi lahaa aynu gacmaha isqabsano mucaaradkow waxaad u badateen reerkaygiibaa wax la siin waayo war aniga faratoona ee caawa idinla hadlaya jagadoon miihi reerkaygiibaa wax la siin waayo wallahaanan marna u hadlayn haddii la siin waayey waan jiray waan noolahay waan noolaanaya maanta wakti aynu ka hadalno reerkaygiibaa wax la siin waayo ma joogno markaynu puntland dhisno wax isu qabano isjeclaano walaal noqono midowno ayaynu soomaaliya wax u taraynaa anuta soomaaliyaan weliba qaran u ahay oo kasii jeclahay inaynu gaadno laakiin sida aan ku jirno reerkaygiibaa wax la siin waaye shaksi nacayb baaba socotaba wax la yidhaahdo war intaad qof necab tahay adeer qaranna ma tihid puntlandna wax u tari maysid hadalkaygii waxaan kusoo gabagabaynayaa ilmaadareyaalow puntlanday si aynu soomaali weyn u gaadhno aan gacmaha isqabsanno walaalowno dhaliisha ka baxno ciddii mas-uula markaa jagada inoo hayso aan caawino aan garab qabanno laakiin haddaynu xumaan iyo reerkaygii waxbaa la siin waayey ay noqon weydo adeeryaalow arrintaas weligeen inaguna meel gaari mayno soomaaliyana waa u dhammaatay